Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my channel Shakur 252 Vlogs. So maanta waxaan doonayaa inaan idin tuso qaabka gaarigaaga aad gaasta ugu shubanaysid ama batroolka ugu shubanaysid. Sidoo kale waxaan idin sheegi doonaa 3 wax oo muhiim ah inaad sameysid markaad gaariga gas stationka aad joogtid ee gaas ku shubanaysid. 3 shay aad iyo aad ay muhiim u yihiin inaad sameysid. So waxaan idin kula talin lahaa 3 shay inaad sameysiin markasta. So hadda gas stationka aynu joognaa waad arkaysiin. So waxaan tusi doonaa qaabka gaariga gaasta loogu shubto. Sidoo kale waxaan tusi doonaa ama idin sheegi doonaa 3 shay oo muhiim ah. Okay, hadda gas stationki gaaska way soo istaagnay waa arkaysiin. Okay, hadda bamkayga oo gaastu aniga xagga wuxuu iga xigaa midigta, baabuurta qaar wuxuu ka xigaa xaggan. So shayga muhiimka ah ee koobaad ee aad sameynaysid marka aad doonaysid gaariga gaas ku shubatid, kow waa inaad gaarigaaga injiinka aad bakhtiisid. Injiinka gaariga oo bakhtiisan waa inaad gaasta ku shubtaa. Waa qodobka koobaad. Qodobka labaad, take your key, furahaaga qaado oo la bax. Qodobka saddexaad maya gaarigaaga loo geliyo. wax kasta ayaa dhici kara. So waxaan sameynaa gaasta ayaan ku shubaynaa. hadda waa arkaysiin gaariga xagga laga waday waa qaybtaas. haddii dad tuuga xagga soo mara ma ogi. So waa inaad be careful. 3 shay aad ay muhiim yihiin. Okay, number 87 kaasan badanaa dadku isticmaalaan waa raqiis. 87 88 waa ku shuban kartaa. kuwa kale kale waa diesel waa naafato iyo badanaa waa iska ilaalinaysa waa naafato. So 87 ku shubanna. So saasinu gelinna. So inagu intaabsinina. So wax baa suura inuu weydiin maayo. sidaa markaynu taabsino wuxuu weydiinayaa gaariga ma rabtaa inaad meedhatid may. So meesha yar falaadhaayr waa arkaysiin. falaadhaayr kor baynu soo qaadanaa. Okay, kadib waan bilaabinaa. meesha yar ba kor qaadaysaa, halkaa yar baynu surinaa. kadib xaggan kala soconaa inta aan ku shubano inta litir iyo lacagta waa xagga sare, litirkiina waa xagga hoose ama gallon, kulba sida u fahmaysid. So waan suginaa $20 baan ku shubaynaa. So 3 shay aad iyo aad ay muhiim u yihiin. hadda gaarigeenu wuu noo xiran yahay. So hadda way furaynaa gaarigeeni, waan ku noqonnaa. That's it. So hadda gaarigeeni gaas baan ku shubanay, furaheeni baynu haysanaa, gaarigeeni way noo safe. So aad iyo aad ay muhiim u tahay 3 qodob. Please fadlan ha ilaawin marka doonaysid inaad gaas ku shubatid gaarigaaga. gaarigaaga waa laga dhici karaa, waa laga carari karaa, naftaada khatar ku geli kartaa. So aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. insha Allah way noo muuqaalkan muuqaalka xiga.